shireer baryahan uga socday magaalada Muqdisho culamaa u diinka Ahlusunnah wal Jamaaca ee gobolka Banaadir iyo deegaanada ku xeeran dhanka qadkana ay uga qayb galeen culamaa u diinka Ahlusunnah wal Jamaaca ee jooga gobolada dalka iyo dibadiisaba laguna falanqeynayay xaaladda dalka oo marayo dhan amni iyo mid siyaasadeed diiradana si gaar ah loogu saaray colaadda ka soo cusboonaatay Galmudug culamaa u diinka markay arkeen barakaca saameynta weyn ee ka dhacay magaalada Guraceel markay arkeen in dawladdu ku daabulayso ciidamadii qaranka magaalada Guraceel si ay ula dagaalamaan culamaa u diinka Ahlusunnah wal Jamaaca markay arkeen in dhagaha laga furaysta dhammaan baaqyadii nabadeed lana xirxiray nabadoonnadii ku baaqay nabadda markay arkeen in ciidamadii furimaha cadawga ku horjoogay loo daabulayo si loogula dagaalamo culamaa u diinka Ahlusunnah wal Jamaaca markay arkeen fadwooyinka isdaba joogga oo lagu banaysanayo dhiigga culamaa u diinka Ahlusunnah wal Jamaaca soona saarayaan madaxda wahaabiyada ee kuwooda xabsiga ku jira iyo kuwooda dibadda jooga waxay culimadu isla qaateen in dagaalka Guraceel uu yahay mid caqiido kuna salaysan caqiido laguna baabi'inayo dalka waxayna soo saareen baaqan kow in aan dalka la gelin dagaal caqiido kaasoo hadduu bilowdo aan la ogeyn meesha uu ku dhammaan doono dibna loo soo celiyo dhammaan ciidamada la dulgeeyay magaalada Guraceel labo in la ogolaado wadahadal shuruud la'aan ah dhammaan waxa la isku khilaafsan yahana lagu dhameeyo miiska dushiisa saddex in dadka barakacay la siiyo kalsooni ay guryahooda ugu soo laabtaan loona fidiyo gargaar bini'aadamnimo afar in xabsiga laga sii daayo dhammaan odayaashii ku baaqay nabadda lana joojiyo caburinta lagu hayo dadaalada nabadeed shan ugu dambayn culamaa u diinku waxay iska dhex doorteen guddi ka shaqeeya nabadeynta Galmudug waxayna ka codsanayaan dhammaan dhinacyada isku haya Galmudug sida dawladda dhexe dawlad goboleedka Galmudug hoggaanka Ahlusunnah wal Jamaaca ee gobolada dhexe in ay si buuxda ula shaqeeyaan guddigaas nabadana ay qaataan wabillahi tawfiiq dhammaan Ahlusunnah wal Jamaaca meeshan way joogaan ashraaftii culamaa u diinkii ragga fuqahaada kulli way joogaan waxa lagu baaqay dhammaan culimada waxay ku baaqday in nabad la qaato nabadda la adkeeyo si degdegna loo qaato insha Allah saasayaan rajaynaynaa in hadalkeena ay loo dhagalnuglaadaan rajaynaynaa insha Allah ajiidayna oo adkeynayna baaqaas ay culimadu ay soo saareen Ahlusunnah wal Jamaaca in la qaato oo duruufta haatan lala hadlaaya ay sida ugu degdeg badan ay u qaataan waxaan rabnaa haddaan nahay Ahlusunnah wal Jamaaca nabadaas lagu baaqay oo maanta la soo jeediyay inay wada qaataan aniga waxaan adkeynaynaa haddaan nahay ashraafta in nabadaas la wada qaato labada meelba si degdeg ah lagu qaato